ardayda wax ka barata dugsiyada hoose iyo sare ee degmada Woodwood bulshada kala duwan ee ku nool magaalada tani ayaa waxay bilaabeen olole nadaafadeed oo ay ku nadaafadaynayaan goobaha biyo mareenada ah maadaama aan ku guda jirno xilligii deeitaanka roobka guga dadkii ka hadlay madashaasi ayaa dhammaantood fariin u diray bulshada reer Woodwood oo ay sheegeen in ay goobaha biyo mareenada ay ka ilaaliyaan qashinka iyagoona ka codsaday in qof kastaaba qashinka uu ku gubo barta uu dhigo maanta oo ay taariikhdu tahay 17 bishii afraad waxa isku dugsiga Ilays hoose dhexe Woodwood wuxuu soo banbaxay oo u taagan yahay nadaafinta deegaanka Woodwood degmadu runtii waxay u baahan tahay horumar degmadu waxay u baahan tahay nadaafad si loo helo caafimaad si loo helo maartay waxyaabaha cudurka sababaya in la iska dheereeyo halkan waxa hortiina ka muuqata ardaydii iyo macallimiintii iyo culimadii xaafadda waa beri oo gacmadii biyuhu inoo soo marayeen haddeer si rasmi ah hawshii u haya ayagu isku xukumeen waajibaad ayagu saareen weeye waxaana la doonayaa qof walba hawshaas inuu isu taago caaqil iyo mas'uul iyo maartay madaxda kale iyo shacabka dhammaan ilaa arday xil weyn baa inaga saaran deegaanka sidaad arkaysaan halkan waa gacankii degmada Woodwood ee balligan biyeynayay iyo ceelasha waxaan inoo yaala runtii waxyaabihii guryaha laga soo qaaday tan laftiyo talay u baahan tahay deegaanku waa inuu xil weyn iska saaro sidii loogu samayn lahaa godad qashimadan lagu asturo sida uu inoo sheegay saako dhan waxaan u haleelaan hadar milcadaan u taaganahay ama qorraxda inaanu ka shaqeyno aniga iyo ardayda aan u hiilanahay qorraxda iyo milcadana u taaganahay sidaan u nadiifin lahayn deegaanka aan uga shaqeyn lahayn horumarka iyo nadiifinta iyo quruxda iyo bilicda magaalada Woodwood iyo caafimaadkeedaba sidaa daraadeed waxaan u mahadnaqayaa ardayda saako dhan qorraxda u taagneed ee milicda u taagneed inay nadiifiyaan dhammaan xaafadaha magaalada Woodwood waana u mahadnaqayaa macallimiinta iyana la shaqeynayay iyo dhammaan cid ka qayb qaadatay hawshaaba waxaan leeyahay ilaahay baa mahad isku keenay madashan iyo halkan waxaanu wadnaa waa dan guud waxaanu ka shaqeynaynaa waa caafimaad waxaanu ka shaqeynaynaa waxa weeye ilaahay baa caafimaadka ay sababtiina la nimaadno inaanu hagaajino goobihii biyuhu u soo marayeen degmada haddii aanu nahay dhalinyartii degmada aanu ku hadlayo afka dhalinyarada aad iyo aad baanu ugu heelanahay oo han iyo hiigsi iyo hiil iyo hoob oo la garab taaganahay deegaankayaga waa deegaankayagii waa deegaankaanu ku dhalanay waa deegaankaanu wax ku baranay waa deegaankaanu haatanna ka hawlgallo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaan dhalinyarta xeelad iyo xoog ba la garab taagan dhalinyarta xeelad iyo xoog ba maanta isla soo garab taagtay inay ka shaqeeyaan dhulkoodii waxa weeye waxaanu ka shaqeynaynaa waxa weeye waa dalkayagii waxaan horumarinaynaa waa dalkayagii aad iyo aadna waxaan ugu mahadnaqayaa dhammaan maamulka iskoolka Ilays oo maanta isagu hawshan isku soo dubariday oo soo xilqaamay oo hawshan iyo isku dubaridkeeda iyo dhammaanteed lahaa waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa saxafiga oo si iska wax u qabsay xilqaana noogu yimi oo nagu soo booqday annagoo dhammaan haddaan nahay anoo ku hadlay afka waxbarashada degmada Woodwood waxaa midooyinkan ilaa maanta ilaa shalay socday nadaafad laga wado deegaanka nadaafadaas oo lagu nadiifinayo goobaha muhiimadda biyo mareenka iyadoo la wadi doono haddii ilaahay idmo nadaafadda deegaanka ilaa iyo inta laga dhamayn doono insha Allah haddii ilaahay idmo khashinka oo laga waayo ilaa inta laga gaarayo heer laga waayo inaan xabad khashina laga helin ama hadday tahay goob biyo mareen ah iyo hadday tahay meelaha muhiimka anaga ku hadlaya dhammaan afka macallimiinta arrimaha bulshada bahda waxbarashada taako olole nadaafadeed ka bilowday xaafadda waa beri waxa degmada Woodwood waxaan kaloo iyagana u mahadcelinaynaa dugsiga sare iyo dugsiga hoose dhexe ee Woodwood oo waxa weeye iyaguna shalay ka fuliyay xaafad kamid ah ama xaafadaha deegaanada kamid ah Woodwood oo iyaguna nadaafadii ololaha ka fuliyay iyadoo ay sababtay maaragtay markii ay bilaabantay xilli roobaadka uu bilaabmay ayaa degmada waxaa loo bilaabay si iska wax u qabsaa in maaragtay la sameeyo nadaafadii iyo goobihii qabshinada la geyn jiray in la nadiifiyo marka awalan horta dadka degmada Woodwood ku dhaqan waxaan ugu baaqayaa hooyooyinka iyo dhalinyaradaba iyo odayaashaba in waxa weeye nadaafadda deegaanka in la ilaaliyo maadaama ay tahay waxa weeye degmadu degmo ballaaran waxaan markaa leenahay si caafimaadkeenu ugu fayoobaado ha la ilaaliyo nadaafadda
cid kastoo goobaha wax keentaana ha gubto oo iyadu baadroolkeeda intay soo qaadato isxil qaanto ha gubto oo waxa weeye si nadaafadda markaa u kaantaroosho. Sakariya Maxamed Ciise Wadani wararka telefishinka Somali News Woodward.